الرحيم waxaan bilaabaneynaa cashirkeenii labaatanaad waxaan soo qaadanay 19 cashir ayaan soo qaadanay cashiradan waxaan dhahnay totally free waaye anigoo maxamed cabdiraxmaan xaanshe ayaan idiin maaragtay ii sharaxaya oo maaragtay ka ah maaragtay macalinka ah marka buugna waa diyaariyey qofkii buug u baahan uu igala soo xiriiri karaa lambarkeyga ayuu ama pagekeyna aan ku leenahay tiktoka ama youtube-ka ayuu maaragtay nagala soo xiriiri karaa waana meeshuu jooga muqdisho ayaa lagu geynaya waana $6 bar cashirka waxaan kasoo bilaabnay 1 ilaa hadda 19 ayuu marayay hadda kii labaatanaad ayaan qaadanaynaa so marka qof walba oo afka soomaaliga ku hadla wuu ka faa'iideysan karaa hadduu 1 kasoo bilaabo cashirada sida aan usoo sameeyey hadduu kusoo maaragtay soo akhristo wuu la qabsan karaa haddii videogan aan soo dhigo videoga keliya aad daawato xoogaa inaad ku wareertaa laga yaabaa marka kasoo bilaaw cashirka koowaad kasoo bilaaw kadib saas maaragtay usoo soco oo la qabso saas ayuu maaragtay ku fiican yahay laakiin hadda haddii aad dhex kala qabsato kale inaad ku wareerto ayaa laga yaabaa marka cashirkeenii labaatanaad ayaan qaadanaynaa haddii marka aan cashirkeena u guda galno maanta waxaan qaadanaynaa LANs ayaan qaadanaynaa LANs waxaa loo soo gaabiyey LAN-ka local area network ayaa loo soo gaabiyey marka picturedana ujeedid hadda kan waa LAN waaye LAN 1 ujeedaa kana LAN 2 waaye so marka waa laba network waaye oo maaragtay loo isticmaalo macnaha buildingkii ayaa laba loo qeybiyey kor iyo hoos ayaa loo qeybiyey first floor iyo second floor ayaa loo qeybiyey so marka macnaha local area network waxaa loo isticmaalaa hal building network loo isticmaalo ayaa la yiraahdaa LAN la yiraahdaa laba magaalo network loo isticmaalana waa noo soo socdaa waan u tegi doonaa laakiin hadiiba aad one building ama hal guri aad network lagu isticmaalo waxaa la yiraahdaa local area network ayaa la yiraahdaa marka hadda picturadan wuxuuna tusay diagramkan LAN dhowr computer oo switch ku xiran oo maaragtay la isku xiray marka waxaa la yiri LAN 1 waaye kan kalena waa LAN 2 waaye so marka buildingkii halkii building ayaa waxaa looga dhigay loo kala qeybiyey local area network ayaa loo kala qeybiyey la yiri LAN 1 kan koraha isticmaalo LAN 2 na kan hoosaha isticmaalo so marka waa laba network waaye laakiin local area network waaye hal qolna waa lagu isticmaali karaa hal xafiis ayaa network lagu isticmaalo ayaa waxaa la yiraahdaa LAN waa small network waaye macnaha haddii marka uu kasii bilaabana magac kale ayuu qaadanaya laakiin anaga hadda local area waxaa u fahantaa local area network waxaa u fahantaa small businesska network loo isticmaalo ayaa la yiraahdaa local area network sida maaragtay one building hal iskuul oo kale network loo isticmaalo hal isbitaal oo kale network loo isticmaalo ayaa waxaa la yiraahdaa ama xafiis yar ama guriga markaa ku isticmaalayso kale waxaa waaye local area network ayaa la yiraahdaa so marka haddii aan marka isla fiirino qoraalka wuxuu leeyahay a local area network oo loo soo gaabiyey LAN is a self connected network waa network asiga isku xiran waa isaga ayaa isku xiran that spans small area network waxaana loo isticmaalaa small area network small area ayaa loo isticmaalaa small area macnaha area yar ayaa loo isticmaalaa oo hal building camal ah ama hal qol camal ayaa loo isticmaalaa such as wuxuu ku leeyahay marka hadduu ku sheegaya sida a single building oo kale farta waxoogaa haddaan weyneeyo kana ujeedaa wuxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay a local area network oo loo soo gaabo LAN is a self-contained network that spans a small area waa network isku xiran oo la isku xirxiray fiilooyin lagu xiray switch lagu xiray kaasoo loo isticmaali karo hal small area loo isticmaalaa kaliya marka wuxuu ku leeyahay such as a single building hal building wuxuu ka wadaa buildingkan oo dabaqan kaliya network loo isticmaalo ayaa la yiraahdaa local area network waxaa kaloo loo isticmaali karaa floor wuxuu ka wadaa qaybta hoose oo dabaqa qaybta hoose ayaa floor waa loo isticmaali karaa room hal qolna waa loo isticmaali karaa network hal qol loo isticmaalo ama network buildingkan loo isticmaalo waxaa la yiraahdaa local area network wuxuu ku leeyahay marka in a LAN in a local area network oo loo soo gaabiyey LAN all parts of network are directly connected with a cable kulli marka waxay isugu xirxiran yihiin fiilooyin sida diagramka ka arkaysaan oo kale switchka ayay ku wada xiran yihiin way isku wada xiran yihiin macnaha with a cables ayaa la isugu xiray or short range oo wireless ahaana waa la isugu xiri karaa kana wuxuu ku noqon karaa
switchka ayaa lagu dari karaa access point ayaa lagu dari karaa sida cashirka hore aan kusoo qaadanay. Hadda kan switch keliya waaye, boortyadan switchka iyo waxaa la isku darayaa iyo access pointiga iyo router ayaa la isku daraya. Markaas wuxuu noo noqonayaa in aan isticmaalno wireless ahaan in aan u isticmaalno ayaan ka dhigi karnaa. Local area network waxaa loo isticmaali karaa in fiilooyinna la isugu xiro, in wireless ahaanna loo isticmaalo ayuu noqon karaa. So marka LAN 1 iyo LAN 2 ayaa la isticmaali karaa, oo hal building ayaa waxaa laga dhigi karaa LAN 1 iyo LAN 2 ayaa ka dhigi kartaa. Macnaha qoladan korena LAN 1 isticmaalayaan, qoladan hoosena waxay isticmaali karaan LAN 2 ayay isticmaalaan. LAN 3 xataa waa loo isticmaali karaa, waa la sii weynay karaa. Laakiin network hal building loo isticmaalo, small area loo isticmaalo, waxaa waaye local area network. Intaasaan rabnaa maaragtay inaan fahanno cashirkeenii oo local area networkna nooc ka mid ah noocyada oo networka ayaan qaadanay. Intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.